wararka naga soo gaaraya dalka Eritrea ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ahaa duqeyno waaweyn laga maqlay magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxay kadib markii hogaamiyaasha kooxda TPLF ee ka dagaalama waqooyiga dalkaasi Itoobiya ay sheegeen in weerar ay ku qaadi doonaan goobo badan oo ay leedahay xukuumadda Eritrea ayaa habeenkii xalay ahaa saqdi dhexe waxa qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada Asmara ee dalka Eritrea qaraxyadan ayaa la sheegay in ay ku dhaceen garoon diyaaradeed oo ku yaala meel sida ugu fogeen xarunta wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi qaraxyadan ayaa la sheegay in ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka soo gaartay dad shicib ah iyo askar ka tirsan dowladda dalkaasi Eritrea wili wax waran ma aysan soo saarin xukuumadda Eritrea oo ku aadan weerarkii xalay ka dhacay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea balse weerarkaas ayaa waxa sheegtay kooxda TPLF ee ka dagaalanta waqooyiga dalka Itoobiya oo dagaalo xoogan ay kula jirto xukuumadda dalkaasi Itoobiya dhawaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in weeraro military lagu soo afjari doono dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya kaas oo kula jeedo in ay ku beegsan doonaan kooxda TPLF ee ka dagaalanta waqooyiga dalkaasi Itoobiya wararkii ugu dambeeyay laga soo gaaraya Asmara ayaa sheegaya in dad badan laga qaaday goobta qaraxyadu ay ka dhaceen ilaa iyo 7 madfac ayaa la xaqiijiyay in ay ku soo hoobteen meel sida ugu fogeen xarunta wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi Eritrea kooxda TPLF ayaa ku eedeysay xukuumadda Asmara in ay taageero siiso dowladda dalkaasi Itoobiya isla markaana ay sheegeen in ay bartilmaameedsan doonaan sidoo kale horay waxa arintaasi u beeriyay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki isagoo sheegay in aysan wax lug ah aysan ku lahayn dagaalka ka socda Itoobiya kooxda TPLF ayaa dhawaa waxa ay duqeyn ay ka geysatay garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka ay dariska yihiin ee Amxaarada waxaana ay sheegtay in halkaasi laga soo abaabulo duqeynta dhanka cirka ah ee lagu qaado gobolka Tigray oo ay ku xoogan yihiin kooxda TPLF ciidamada u dagaalama kooxda TPLF ayaa waxa mudooyinkii ugu dambeeyay weeraro ay ku qaadayeen goobaha ay isla yihiin waa laga soo abaabulay qaraxyada iyo weerarada tooska ah ee ciidamada militariga Itoobiya ay ku soo qaadayeen halkaas ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ku baaqay in dhawaan la soo afjari doono dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya gaar ahaan waqooyiga oo uu ku sheegay in ay ku dhumaalaysanayaan koox sharwadayaal waa sida hadalka uu dhigay wili kooxda TPLF ayaa waxa ay sheegtay in ay si wada doonto dagaalada ay kula jirto dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya waxaana ay ugu baaqday maamul goboleedyada ka dhisan dalkaasi Itoobiya in gabi ahaanba ay faraha ay kala baxaan dagaalka iminka ka soconaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya kooxda TPLF oo la sheegay in ay yihiin xoog aad u hubaysan isla markaana heesta hub culus ayaa dhawaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay in kooxahaasi ay ka kooban yihiin ilaa iyo 250,000 oo askari oo aad u hubaysan isla markaana difaaci kara gobolka balse Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya waxa uu sheegay in ay ka hortagayaan isla markaana ay wiiqi doonaan abuuda sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan waxa uu afis u fidiyay dagaalamayaasha u dagaalama kooxda TPLF hadii ay ka soo baxaan balse afiska ayaa waxa uu sheegay in ay muddo kooban ay ku egtahay kadibna ciidamada Itoobiya ay weerarkooda ay sii wadan doonaan isla markaana cid waliba oo la dagaalamaysa cagta ay marin doonaan sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa dhawaan waxa ciidamo ay ka saari doontaa Soomaaliya kuwaas oo tiradooda lagu sheegay 3,000 oo askari waxaana arintaasi walaac ka muujiyay qaramada midoobay ayaa dhawaa waxa ay sheegtay in ciidamada Itoobiya gaar ahaan kuwa Amisom ka socda ee ku sugan koonfurta Soomaaliya hadii laga saaro dhibaato weyn ay soo wajihi doonto shacabka ku nool deegaanada ay ka baxaan sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in la badgelin doono dadka shacabka ah ee ku dagaalamaya ciidamada militariga dalkaasi Itoobiya iyo kooxda TPLF boqolaal ruux ayaa ku geeriyootay 10 maalmood ee ugu dambeysay dagaalada ka holacaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya sidoo kale in ka badan 18,000 ayaa lagu qasbay in guryahooda ay isaga cararaan kuwaasi oo baday isla markaana u hayaamay wadanka dariska yihiin Itoobiya ee dalkaasi Suudaan sidoo kale waxa qaramada midoobay ay walaac ka muujisay dagaalka aan dhamaadka lahayn ay wili ka soconaya dalkaasi Itoobiya waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in laga yaabo todobaadida soo socda tiro inta ka badan ay ka barakay doonaan gobolka Tigray ismaamulka Soomaalida ismaamulka Tigray ee dalkaasi Itoobiya wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegay